soo dhawaada meel baa joogtaan maanta barnaamijkeena waxaa ku soo qaadan doona 10 nin ee ugu taajirsan adduunka inaga oo kasoo bilaabi doona lambarka 10aad kuna keeni doona lambarka 1aad inta aynu u guda galin barnaamijka fadlan dad nagu cusub tahay subscribe saar channelka lambar 10 Larry Page waa mid ka mid ah aasaasyaasha Google waxa uu Google la aasaasay saaxiibkiisii Sergey sanadkii markuu ahaa 1998 Larry waxa uu maamulo ka ahaa Google ilaa 2001 laga soo bilaabo 2011 ilaa 2015 markii uu noqday madaxa shirkadda Google Alphabet lacagtiisa saafiga ayaa ah 50.8 bilyan oo dollar ninka sagaalaad waa Michael Bloomberg waa aasaasaha shirkadda warbaahinta Bloomberg LB sanadkii markuu ahaa 1981 Bloomberg waxa uu ahaa duqa magaalada New York 12 sano waxa uu ka mid ahaa 4 qof oo kaliya oo soo shaqeeyay muddadaas dakhligiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasaa 55.5 bilyan oo dollar Nambarka 8aad waxaa ku jira aasaasaha shirkadda Facebook ee Mark Zuckerberg kadib markii uu wajahay dhaleecayn badan oo loo soo jeediyay shirkadiisa Facebook madaxa fulinta Mark Zuckerberg ayaa sheegay in ay ahmiyadda u leedahay sanadkii tagay 2019 ay tahay wax ka qabsashada arrimaha bulshada ee Facebook Zuckerberg Facebook waxa uu aasaasay 2004 markii uu ahaa 19 jir arday dhiganayay jaamacadda Harvard Zuckerberg dakhligiisa waxaa lagu qiyaasay sanadkan 62.3 bilyan oo dollar Lambarka 7aad waxaa soo galay Larry Ellison waxa uu aasaasay shirkadda Oracle sanadkii 1977 si loo ogaado baahida sii kordhaysa ee xogta xiriirka macaamiisha waxa uu ka tanaasulay doorkii muhiimka ahaa ee Oracle sanadkii 2014 laakiin waxa uu wali yahay gudoomiyaha Oracle Ellison waxa uu ku biiray guddiga Tesla bishii December 2018 kadib markii uu iibsaday 3 milyan oo saamiga Tesla horaantii sanadkaas dakhligiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasaa 62.5 bilyan oo dollar Lambarka 6aad waxaa ku jira Amancio Ortega waa mid ka mid ah ragga ugu qanisan Yurub Ortega caadi ahaan waxa uu shaqeeyaa in ka badan 400 oo milyan marka loo qeybiyo sanadkii waxa uu maalgeliyay saamiyada ugu horeeyay ee guryaha Madrid, Barcelona, London, Chicago, Miami iyo New York dakhligiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasaa 62.7 bilyan oo dollar Nambarka 5aad waxaa ku jira Carlos Slim ninka ugu taajirsan Mexico Carlos Slim iyo qoyskiisa ayaa gacanta ku haya American Moving oo ah shirkadda ugu weyn ee telefoonada Latin America Slim waxa uu iibsaday saami ku yaala magaalada Telmex oo ah shirkadda kaliya ee telefoonada ee Mexico sanadkii 1990 Telmex hadda waa qayb ka mid ah American Moving waxa uu leeyahay saamiyo ku saabsan dhismayaasha Mexico macdan qodista shirkadda guryaha iyo 17% oo ku leeyahay jariiradda New York Times dakhligiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasaa 64 bilyan oo dollar Nambarka 4aad waa Bernard Arnault waa gudoomiyaha iyo maamulaha shirkadda LVMH oo ah shirkad soo saarta dharka sanadkii 1989 Mr Arnault waxa uu noqday qofka ugu saamiga badan shirkadda LVMH isagoo abuuray kooxda adduunka ugu sareysa ee alaabada raaxada Arnold waxa uu ahaa gudoomiyaha iyo madaxa shirkadda ilaa taariikhdaasi Mr Arnold waxa uu kaloo madax u yahay madaxa guddiga sare ee shirkadda Group Arnold SE dakhligiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasaa 76 bilyan oo dollar Nambarka 3aad waxaa ku jira Warren Buffett waa mid ka mid ah maalgashadayaasha ugu guulaha badan abid Buffett shirkadiisu waxa ay maamushaa Berkshire Hathaway oo leh in ka badan 60 shirkadood ay ku jiraan caymiska iyo makhaayadda cunnada ee Queen Buffett dhaqaalihiisa waxa lagu qiyaasaa 82.5 bilyan oo dollar Nambarka 2aad waxaa ku jira Bill Gates waa aasaasaha shirkadda Microsoft sanadkii 1975 Bill Gates iyo Paul Allen ayaa aasaasay shirkadda Microsoft Bill Gates waxa lagu qiyaasaa dhaqaalihiisa 96.5 bilyan oo dollar Nambarka 1aad waxaa ku jira aasaasaha shirkadda Amazon ee Jeff Bezos waxa uu aasaasay Amazon sanadkii 1994 Amazon waa suuqa ugu weyn ee wax lagu kala iibsado dhanka online-ka
bishii Febraayo Amazon ayaa shaacisay in ay baajinayso qorshaheedii xarun labaad ee uga furan lahayd New York kadib markii ay xildhibaanada Mareykanka ka soo horjeedsadeen qorshahaasi. Bezos dakhligiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasaa $131 bilyan, waana ninka dunida ugu taajirsan. Intaas ayaanu kusoo koobaynaa barnaamijkeena maantay. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar channelka. Sidaas iyo amaan Allah.